soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Amani, waxaan ahay gabadha keliya ay dhaleen waalidiintayda. Haatan waxaan u soconaa beerta xayawaanada. gaariga tartiib waad ogtahay inaan soo jaarinay haddii kale shil baan galaynaa. waxaan rabaa meeshan aan dhaqsi tagno intaysan dadku soo buuxsamin dibna aan uga soo laabano xilli hore. Waxaa si lama filaan ah noogu hormaaday gaari aad u weyn oo xawaaro sare ku socda. kadib markii shilka aan dhalnay, waxaan soo laabtay miirkayga, waxaana maqlay dad hareerahayga taagan, sidoo kale ambalaas noocyada ka feelanaysa. maalintaas waxaan waayay dadkii ugu kaalisanaa ee noloshayda, aniguna waxaan galay isbitaal. 15 beri ayaana kooma ku jiray. haddaba gabar yahay, maanta waa maalintii aan bixi lahayd, naftaadana ha daalinin, waa inaad nasataa. alaabtanina waxaa laga helay meeshii aad shilka ku gasheen. keligayga ayaa iska ooyay, balse alaabtii ayaa waxaan ka dhaxlay furaha guriga. kadib waan soo baxay, waxaana soo aaday gurigeenii. markii aan guriga imaaday oo gudaha ama soo galay, waxaan dareemay cidlo aad u fara badan. aad ayaan u ooyay. waxaan fadhiistay fadhiga, misna qof ayaaba ibaabkii soo garaacay haddii aan ka furay. ugu dambeyn waa ku qatay. guriga waa inaad ka guurtaa maadaama aadan bixin 2 bilood lacagtooda. laakiin adeer, maada maqla miyaa inay waalidiintada dhinteen? haa, waan maqlay, ilaa u naxariisto, balse waxaan u baahanahay lacag aan siiyo reerkayga. hagaag, adeer waxaad ii qabataa 2 maalin oo keliya. 1 maalin oo keliya ayaan kuu qabanayaa. waxaan haystaa dad iga ijaarinaya guriga. hey adeer, waad mahadsan tahay. intaas kadib waxaan bilaabay inaan baaro boorsada hooyadii ay lahayd, waxaana misna ka helay hawayar laaga iyo sanduuq yar oo xiran. waxaan isweydiiyey wax ku jira sanduuqani, waxaana hubaalaa hooyadii wixii dahab iyo wax kale ay haystayba inay iibisay si ay u bixiso ijaarka guriga. waxaan bilaabay inaan raadiyo furihii, ugu dambeyntiina waa helay. haddii misna aan furay, wax la yaab lah ayaa igu soo baxay. waxaa igu soo baxday 2 jijimood, midna ay ku qoran tahay Amani, midda kale Tahani ay ku qoran tahay. jijimahaarina waa kuwa markii isbitaalka aroos ay ku dhashaan gacmaha loogu soo xiro. talow ma gabar loota ayaan leeyahay oo wax lagu farxo? waxaan arkay warqad meesha ku hartay. anigoo faraxsan ayaan furay, misna waaba warqadda dhimashada walaashiida. balse waxaa la yaab leh, hooyadeyda sababta igu sheegaysa inay gabar la nahatay. dib ayaan sanduuqii ugu radiyey. lacagtii guriga taale ayaan soo qaatay iyo sawirka hooyadeyda oo keliya. guriga waa soo xiray, furihiina waan iska wareejiyey. guriga ma ka soo dhammaatay inan yahay? haa, lacagtaan haysta ma awoodo inaan guri ku ijaarto, sida awgeed wax guri ku jiro oo idil adiga ayaan kaaga tegaya. suuqa geyso oo iibso. anigoo afuri meel aan aada ayaan soo baxay, waxaana fadhiistay laamiga dhankiisa. waxaan dareemay baahi daran. waxaan fiiriyey maraad dawarkii ku taalay, waxaana bahay waa inaan adkaystaha ilaan lacag lagu filmaystiye. balse ugu dambeyn carafta cuntada ayaa iga awood badisay oo maxaydii ayaan aaday. markii waan fadhiistay oo waxaan iibsaday cunto, waxaana bilaabay inaan si tartiiba u cuno. markii dambena waxaan soo xasuustay dhimashada waalidiinteeda, waxaana bilaabay inaan ooyo. marwo, waxyaabo kale aad u baahan tahay miyaa jira? maya, waad mahadsan tahay. iga raali noq marwo, waxaan rabaa inaan boos kaaga fadhiisiyo dad kale oo bannaanka taagan oo macaamiisha ah. waxayna bannaan ku taagan yihiin maadaama kuraasta ay buuxaan. waa ka xumahay mudane, balse intaan bixi waxaan ku weydiinayaa, ma jirtaa booska banaan maxaydaada? meeqa sano ayaa jirtaa? 17 sano. iga raali noq marwo, awood uma lihiin shaqo inaan siino qof da'diis ay ka yar tahay 18 sano. maxaayadii ayaa bannaanka uga soo baxay. muddo isbuuc ahna waxaan magaalada idinka raadinayay shaqo. lacagtii yareed aan haystayna way ka dhammaatay. xaaladda ayaa aad u adkaatay, waxaana dareemay baahi fara badan. waxaana sameeyey wixii iigu xumaa nolosheeda, taasi oo ah inaan toogsado. waxaan naftayda weydiiyey, xaaladani adag goorme ayaan ka bixi doonaa? ma waxaan gaaray inaan toogsado oo dadka aan wax weydiisto? balse si lama filaana waxaa agtida ku soo istaagtay islaan waayela. waxayna dhahday, gabadhayda waxba ha uunin, wax walba way fududaan doonaan. waan u mahadceliyey, kadibna lacagtii aan haystay ayaan soo qaatay. waxaan soo aaday maraaxidii igu dhaweed, balse markaan gala waa la celiyey, waxaana la dhahay, marwo, naga raali noqo, kuuma ogolaan karno dharkan inaad ku gasho gudaha maqaayadda. balse baahi ayaa ii hayso. hadday sidaa tahay, waa kuu dalbayaa bannaanka ayaadna ku cunaysaa. waxaan rabaa kulad yarnaan dareema intaan cuntada cunayo 2 maalin waxuu maanan cunin. marwo, iga raali noqo, ma awoodi midaasnaan sameeyo. lacagta ayaan u soo bixiyey, waxaana dhahay, halkaas ayaan kugu sugayaa ee cuntada iikaan. kabayeerihii cuntada iyo iikeena si daran ayaan u cunay. markii aan cuntada dhammaystay oo aan dharway, waxaan arkay meel yar oo biyo ay ku jiraan.
wejigayga ayaana fiiri waxaana arkay inuu wasakhaysan yahay waxaana u imaaday kableerigii waxaana ku dhahay ma ii ogolaan kartaa masoshin aan isticmaalo maya waa ku baryaa lacag ayaan ku siinayaa timaha iyo wejiga ayaan kusoo haysanaya oo keliya intixana ray ayuu ikala tuuray wuxuuna igu dhahay meeshani ma ahan saaloon ama masquul waa maqaayad aad ayaan u ooyey waxaana dareemay xaaladeed inay sii adkaanayso halkani maxaa ka dhacaya gabadhan waxay rabtaa maqaayadeed inay sharaf disho waxayna moodaa meel saaloon oo timaha lagu hagaagsado inay tahay ninkan warkiisa maba igu socdaba waxaan la yaabanahay gabadhani sida aad igu eg tahay adiga waad ii eg tahay haa adiga hataa waad ii eg tahay haddii aan jirkayga ahaan wayba kasii daran tahay tahani miya tahay waa tuma tahani igaraa loo khabarwo qofka ayaan ku mooday meeshan iskaga tag macaamiishan ayaad dhibaysaa ka leexo magacaygu waa khamar soo maadan rabin inaad timaha hagaajisatid anigana magacay kuwa ammaani aad ayaan kaga mahadcelin lahaa midaas hadaa ii samaysid waa yahay ee inaken gadaasheeda ayaan socday waxaana aad ula yaabanaa sida labadan aan iskugu egnahay waxaa moodaa inala karajeexay kor ammaaniyey aniga miyaa koray gaarigana sidan oo korxan maxuul maaha midaas ma samayn kari dhib ma lahanee kor darawalka ayaa nadiifin doono wax walba gaariga ayaan soo kornay gadaal ayaana fadhiisannay waxaana fiirinaysay wejigayga halkee idingeeyaa marwo waxaad nageysaa saaloon daadaada ma ii sheegi kartaa haa 17 sano ayaan jiraa adigana anigana 17 sano subxaan allah wax walbaana iskaga egnahay xitaa timaha waxaan bilaabnay inaan nolosheena oo idila ka sheekaysanno waxaan jecelnahay iyo waxaan nerabnahay halkan istaag darawalka gaariga ayuu noo joojiyey waxaana galnay saaloonkii waxa uu ahaa mid aad weyn waxaana soo dhaweysay gabadho heran dhahday aad aan ugu faraxsanahay marwa khamar inaad noo timaato mahadsanid midani waa ammaani waxaa rabaa timaha inaad u dhaqdid wax walba ay u baahan tahana aad u samaysid anigana dhar ayaan sii raadsanaya ammaani gabadhani waa midda ugu fiican tima hagaajinta khamar way iga tagtay waxaana la ii bilaabay shaqada laakiin waxaa la yaabanaa sida khamar ay wada dhaqmayso ayadoo nolosheeda wax badan ka ogeen kadib markaan soo huwaystay gabadhii ayaa ii keentay baa dharkani khamar ayaa ku keentay dharkii ayaan soo xirtay waana soo baxay gabadhiina waxay bilaawday timaa inay i qalajiso waa la yaab waxaad leedahay koobiga timaha marwo khamar lacagta saaloonka ayay bixisay khamar waama soo baxnay waxaan rabaa waalidiinteedina ku soo baro marabi inaan dhibaato ku keeno aniga ayaaba nasiib leh hataan ku bartay aad ayaan u faraxsanahay waxaana sii jeclaan lahaa walaasheed inaad noqotid waalidiinteeda hadday ku arkaan noga hubaa inay lama filaan ku noqon doonto sideeda oo kale waayahay macquul ma tahay inaad ii ogolaatid meelnaad igeysid intaan ku raaxan ka hor haa waa halkee waxaana asnay gurigii hore aan u degnayn waxaana ilbaabkiga furay ijaarta cusub mudane gurigan ayaan hore u degnaan jiray waxaana rabay sanduuq gudaha ku jira maysiin kartaa iga raali noq marwo wax walba gurigani dhex yaalay banaanka ayaan ku daadiyey yaarigeenii ayaan dib ugu soo laabanay waa maxay waxaad raadinaysid warqad caddaynayso inaan leeyahay gabadh mataanila ma waxaad u malaynaysaa mataale inaan nahay haa cod gudahii ka imaanaya ayaa ilay waxaad iska eegtiin xilliga noloshada xitaa codka aan iska eegnahay macquulna maanin dad iska eegi kara intaas waxaa laga yaabaa kulankeena inuu ahaa mid kedis ah oo khayr labadanaba noogu jira waxaana weydiin doonaa wax walba waalidiintayada ayaga ayaana sheegaya waxaan dareemay hamar inay aad arrintan u xiiseynayso ee si fiicanna i ii soo dhaweysay sida qof muddo dheer iyo xanay waxaan imaanay guri aad u weyn ayna ku dhex taala beer waxaa moodaa quruxdiisa kasri aad u weyn oo boqortu way degan tahay waxaan u imaanay hamar waalidiinteeda oo jas ciyaaraya hal mar ayuu waxay ugu soo fiiriyeen indhana hadal leh aabe hooyo fiiriyabal waa tuma ma aragtii miyaa sidaan iskugu egnahay waa mataantayda ma waalatay sidee ku soo gelisay qof aan la aqoonin guriga xitaa tuuga ayay noqon kartaa qof walba oo kuu egna ma waxaad leedahay waa mataantayda ilaahay waxa uu abuuri karaa qof adigu ku eg laakiin anaga adiga keliya ayaan ku dhalnay halkan ayay seexanaysaa caawa suurtagal maahan oo adiga sidee kugu ogolaadeen waalidiintaada inaad guri kala seexato waalidiinteeda shil gaari ayay ku dhinteen aad ayaan uga xumahay halkan seexo caawa laakiin ma ogolaanayo mar kale inay soo laabato arrintani mahadsanid marwo kadib waan soo baxnay oo waxaan nimid qolka khamar waxay tustay alaabaheeda aadka xaligu ah darkeeda gebaheeda waxaana dhahday noloshaas sidee ahayd waxaan tusay sawirka waalidiintayda waxaana bahay noloshiida idil intan ayay ku kooban tahay ayagoo jeel ayay keligii ka tageen keen sawirka hooyada aad ayay kugu eg tahay markiisi loo fiidhina labadana buen oo eg tahay laakiin hal mid ayaan samaynaya waa maxay waxay tahay biris wixii ayaad ogaan doontaa suwixii markuu waaga baryey khamar waxay iisoo kaxaysaa isbitaal dhiig ayaana layga qaaday khamar maxaa waaye baaritaankani waxaan baaraynaa d n a si loo ogaado labadeena waxa naga dhexeeyo
isbuuc ayayna natiijada kusoo baxaysaa gurigayga ayaana joogaysaa mana rabi waalidiinta inay wax ogaadaan muddo isbuuc ah kadib waxaan dib ugu laabanay isbitaalka oo natiijada ayaan helay kaalay fiiri natiijadu waa positive waxaan nahay mataano hab ayaan is siinay anagoon isku dil-oonaynaa laakiin waxaa su'aala haddaa waraalanaanay sidii ku kala fogaadnay yeena yihiin waalidiinteena dhabta kamar waxay dhahday wax walba waxaan ka ogaanaynaa waalidiinteeda eena keen guriga markaan imaanay ayaa waxaan aragnay waalidiinta xamar oo sheekaysanaya warqadda baaritaanka ayaa kamarna miisku saartay waa maxay fiiri marka hore kamar aabahida warqadda ayuu akhris ku bilaabay asigoo nahsan waa maxay waa baaritaan caddeynaya inay walaalo yihiin sidoo kalena ay mataano yihiin hadda kahor waxaa yeeshay uur waxaana dhalay gabar laakiin dhibaato ayaa kala kulmay waxaa laga saaray ilmogaleenka waxaana la ii sheegay gabadhayda inay dhimatay hooyadiina ayaa dhinac iga jirtay oo markaas dhashay labadiina anigoo murugaysan ayaa waxaa yimid aabbaheena hooyadiina wuxuu u sheegay shaqada in laga soo eeriyey wuxuuna dhahay guriga hooyo ayaan u guuraynaa balse hooyadiina way diiday xilligaas ayaa waxaan ka dalbaday inay hal gabar siiyaan si aniga ay ugula noolaato waxaana u ballanqaaday inaan siin doono 5 sano lacag ay guriga u ijaaran karaan sidoo kalena 5 sano wax walba ay u baahan yihiin aan siin doono aabihiina wuu ogolaaday arrintaas gabadha la siiyana waxay ahayd tahani ayagana waxaan siiyey gabadhaydii dhibatay si aanan qaraabada kale u shakinin balse hooyadiina way ooysay mana ogolaan arrinkaasi waxuu marka nala sheegay ooyin ayaan isaalin weynay kamar hooyo waa ku baryanaa hanaga tagin ma idinka tagaayay laakiin hal shardi ayaan wataa ii sheeg wax walba oo aad u baahan tahay waxaad dib igu soo celinaysiin magaceygii hore sidoo kalena walaasheeda anaga ayay nala noolaanaysaa ba intaas oo keliya waa akhbarnay maalmo markaan ku noolaa guriga waalidiinteeda cusub waxaan ogaaday inay yihiin kuwa aad wanaagsan oo sidan moodaya ka fiican waxbarashada ayaan dib ugu laabtay waana dhameeyey shaqo ayaan helay sidoo kale walaasheeda tahaanina waxaan isku helay waqti aad u dheer oo labadana aan ku sheekaysan karno balse mar walba aan soo xasuusto nolosheedii hore waxaan dhihi jiray alxamdulilah waxaan noqday gabar darbi jiif ah oo isu bedeshay bakhurad mar walbana waxaad ogaataan alla wuxuu kuu kora waa kheer